warkii oo fidsan guddiga joogtada baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa maanta shir ku leh Villa Hargeysa iyadoo kaga doodaya doonaan qaabka loo wajahi doono doorashada sanadka ee dhacaysa bisha December ee soo socota. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Jeylani Cumar Ikar ayaa sheegay in guddiga joogtada baarlamaanka isla eegi doonaan qaabka uu dhici doono doorashada iyo qorshooyinka la qabanayo ka hor inta doorashada dhicin. mudane Jeylani ayaa sidoo kale xusay in qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaranka lagu hadlayay qaabka doorashooyinka u dhici doonaan iyadoo aan la ogeyn sida xilligani wax u bedeli karaan go'aanada ay isku raaceen madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayagoo ah kuwa xilligan ka goodo talada Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa furitaankii kalfadhigii sideedaad sheegay in baarlamaanka la horkeeni doono go'aanada ka soo baxay shirka madasha wadatashiga ee isku raaceen habka doorashada 2016 ee dhacaysa. baarlamaanka federaalka ee waqtigiisa sii dhamaanaya ayaa awood badan ku lahayn go'aamada hogaamiyaasha madasha wadatashiga ee qaranka iyadoo ay muuqato in go'aanadaasi ay inta badan yihiin kuwa u gaar ah hogaamiyaasha. ciidamada AMISOM ayaa dad shacab ah ku dilay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. wararka ka imaanaya deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in ciidamada ka tirsan AMISOM ay shalay ku dileen 4 ruux oo shacab ah kuwaasi oo saarnaa gaari. ciidamada AMISOM ayaa rasaas huwiyay gaari yar oo nooca suuq-suuqiga ah oo la socday dadka oo u sii jeeday magaalada Muqdisho. 4 ruux ay dileen ciidamada ayaa waxa ku jira haweeney da'eed oo xaalad caafimaad loogu sii waday magaalada Muqdisho, waxaana la dilay gabar yar oo ayay u ahayd. sidoo kale labada ruux kale oo ahaa ganacsato laga yaqaan deegaanka waxaana magacyadooda lagu sheegay Daawud iyo Maxamed Macalin. dadka